runtii qof ahaan sharaf weyn ayay ii tahay maanta inaan ka qayb galo barnaamijkan lagu soo dhaweynayo saaxiibkay Maxamed Cabdullaahi Siyaasi oo ah nin dhalinyaro ah wadanka wax u soo bartay taasoo runtii u ah wax weyn Soomaaliya iyo gaar ahaan dadka uu ka soo jeedo magaalada Muqdisho Cabdallah saaxiibkay Siyaasi runtii sidoo Cabdicasiis sheegay marka laga soo tago inuu yahay arday halkaas wax barasho u doontay runtii wax weyn ayuu ummadda u qabtay Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed ee ku nool wadankaasi Malaysia ani markaan gudoomiyaha aad isku la shaqeynayno runtii wuxuu markasta igala hadli jiray caqabadaha haysta arday Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo qaabka loo caawin karo hadday noqoto safaaradda hadday noqoto wasaaradda arrimaha dibadda hadday noqoto wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya qaabka ugu fudud ee dadkaasi loo saacidi karo runtii intaas kaliya ma ahayn waxyaalaha ninkan uu qabanayay xataa dadka oo meeshaas jooga oo tabaalaysan oo Soomaalida halkaas jooga marka qaar marka duruufo ay yimaadaan runtiina aad uu barnaamijkaas nolosha la gelin jiray annaga laftirkeena waxaan wada qaban karno iyo xiriirada la sameyn karo dadka Soomaalida oo rabaan inay halkaas tagaan Malaysia hadday rabaan caafimaad hadday rabaan waxbarasho iyaguna runtii aad u caawin jiray intaas kaliya kuma koobnayn xataa annaga marka midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed saa ka warqabtiin wadamada Soomaalida waxay ka barato oo dhan waxay ku leeyihiin wakiilo mararka qaar shaqooyinka wakiilada kala shaqeynayay qaaradda Asia aad u caawinayay